waxaynu baraarujin lahayn waddankeenna sababaha keena furiinka si aynu bulshada uga daweyno aadna uga feejignaano waxaa ka mida tarbiyad la'aan iyo tadayin la'aan qofka haddii diintiisu ay wanaagsan tahay rabaayadiisuna fiican tahay wiil iyo gabadhba dulqaadka sabirka xuquuqda la ilaaliyo waxay noqonayaan waxyaabo aad loogu dadaalo oo dadka diintoodu fiican tahay turaalahoodaa badan sidaa daraaddeed qoysaskooda aad uma burburaan waa wax hubaalaya waxaa keeni kara furiinka waxa la ydhaha balwadda dee mid marna qaadiraysan marna marqaansan marna xaraaraysan markaalay garan sida loola dhaqmayo saddexdaas unbuu udhaxeeya qof uu marqaansaya cirku maraya uu jiraya iyadii ciyaalkaba marna uu xaraaraysan yahay hanaansigaa ku badanoo waa markan ay idhahdaan wejiga iga saaran tahay lahadla marna uu qaadiraysan yahay marka waxay sheegayaan saddexdaa xaaladood inaanu qofkii caadi ahayn kolley waa la isku dhacaya marka balwaduna waa musiiba khamri iyo daroogana hadalkeeda badaa baahida iyo faqriguna waa ka midoo dad badanoo iskaba golobaa isu samri kari waayo oo markay da adkaysan kari weyda ayaa khalaas ayaa furiinka imanaya marka wax soo saarkuna waa muhiim dadka qaarkood aan istijaabinna waa keena markay isu dhali waayaan sabirkuu iska soo yaro uraa kadibna waxay leedahay hebel aan istijaabin markaa sharcigu ma kala eryaye dee istijaabintoodana way iska wadan karaa reerkoodana way iska wadan karaa marka iyaduna iska fasaxday tiraahdo weydo kol haddii inaad cid kale iska guursato waa kuu fasaxay laakiin istijaabintaasina way keentaa reerku inuu ku burburo dayadaa keeni karta dayada dadku ay ku nool yihiin dad iyagana furiinkii ku badan yahay ama aan xaasinada jeclayn ama aan qoyska u roonayn oo gaalaha dad la noosha ama sabreeshanka iyo kala degida aynu sheegayno kala baxa shaqadoodu tahay cudurka waad qaadi haddaa cidla degan tahay cudurka waad qaadi sidaa daraaddeed baa qoysaskeena jaaliyadda dabadda aad buu furiinku ugu badan yahay waxaa laga yaabaa 100 dumara inaad u timaadeen 60 ay yihiin mudallaqaad ama kuwa la furay waxaa keeni kara shaqada hadday iyadu shaqayso ragga qaarkood baa shaqadaa ka xanaaqo idhaahda dee gurigii baan kaaga soo horeynaya aan kaaga dambaynaya waad iska dayn shaqada war may dayn maayo shaqada dee waaba ku furay xiddatu dabcigu wax iska jiray inta badan ilaahay subxaana wa tacaala isaga addoomaha yaqaano abuuray ama laba qof oo wanaagsan buu isku hagaajiyaa ama ninkaa dulqaata ama gabadha laakiin laba xayraan sida badan iskuma hagaagaan markiiba waa isku barxaya dab ku dhufaa la ydhaa marka sida badan labadaa dar isku dhufaa hadday salaan furiinku u yimaadaan waxaa keeni kara furiinka labada waalidoo isfura haddii labadii waalidoo isfuraan dabcan cudur la kala qaadi karo weeye oo inantiina ay qaadi karto hooyadeed kaga dayan karto marka turaalahay ka mid tahay carruurteena si loogu tiro in furiinka loo samro oo furiinka laga samro waxyaabaha keeni kara waxaa ka mida tadakhul alahli walasxaab aad baynu u baraarujinaynaa midkaa ehelka iyo asxaabtu inay soo farageliyaan reerka oo iyagana asxaabteedii baa soo ciyaarsiinaya dhagahaba ka haysta iyo dhakada isagana saaxiibadii baa ka dhaxadlaya ama xididkii baa ka dhaxadlaya iyada isagana ehelkiisii baa ka dhaxadlaya oo la talinayo wuxuu sheegayo naagta caynkan ku dhe maalinka caynkan ku dhe labada qof in laysu daayaabeen iyagaa nolol wada qaadanaya sida eeshiyaanka ma taqaanaa baakistaan indiya dadkaas gabadha marka loo guuriyo nin waxaa la leeyahay laayo saacaddaa laga bilaabo isagaana ku siinay wuu iska kaa leeya wuu ku qaatay hanagu soo warwareegi waxaanu kugu samafali karnaa keliya telefoonkaas inaad nagala soo xidhiidho nala soo hadaaqasho waa kuwa baroortay mararka qaarkood kolka la meherinayo waxay la barooranaysa reerkii ay waayayso innagana dabadaaba la haystaaba keligeena inantana dabada la haystaa inankana dabada la haysta gabadhiina ninkii waa lala qabaa sidoo kale iyadiina hadday inantii dabadda joogto reerkoodii halkan kala hadlaya waxay leeyahay soo dir reerka waa laa maqanba isagina wuxuu leeyahay dee aanu wax biirsanno mee reerkii aanu soo qaydaya isagina waa intaa in leeg asxaabtuna waa noocaas oo kale ama wareer ha ahaada ama wareer dad badan waxa waalaya asxaabta gurigii unbaa dumar wadaanuun oo isagii unbaa dhagta laga hadlayaayo reerkii waxaa kala kicinaya dad saaxiibba sheeganaya oo saaxiibadaasina khayr intay qofkan iyo reerka dhismihiisa uga badnaa waxay u badan yihiin shar iyo naxri waatana intoo laga eriyo ayaa marka dambena lagu qoslaya waa tii iska labnayda jannada ka soo baxday bay leeyihin marka hore inta ka fardhiyaan suulka kaga joogsadaan
ayaa markay doqon noqotay reerkeedii burburisay ninkii ka baxsato iyadoo madaxa xoqanayso oo weersan markay arkaan baa waxay leeyihiin qaatidii sidii leeyaadan jannada ka soo baxday way ku iibsanayaan marka waxaynu kula talinaynaa hablaha qaaliga ah cid kala xun siinaysa inaanay aqbalin laakiin gabadhooda ay ninkeeda ilaashato sidii khawla bintu thaclaba saxaabiya mashhuura suuratu aqaar akhriya qad samic bilowgeeda xiraay ka warramay ruux dumaraho nabi maxamed ku wareegaysa oo ninkeedii carruurteedii la jeclaynaysa oo la doodaysa ka tegi laba isagu u fura iyana way ka tegi laada qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير دوت بيلقى شيء حاجات هذا يجيب المري حب يجيب وقات ويصرف حاجات كذا كذا تصلوا بهاي حاول يهمه الحب يقصد شيء والحب بتر عمليه درجة يبغى الحب حاجة الله يسار يا هيك لكن منكم قبل وانا درتها غيرك إن عملكم كلهم waayo way iskuursadeen marka lala iyana way soo guurtay isna way soo guuray way iskuursadeen meesha ma kala lahaa marka uu ku atooray waxaan baraarujinaynaa ninkuna aqiyadiisa ku socdo kabadhina aqiyada ku socoto waa ehelkan iyo asxaabta reeraha burburinaya laga daayo waxa keeni kara sababaha ka mid ah waanu qaadigaan haya kollay qadaagina waa ku jira nidaamkii qoyska fatwadiina dhinacba iga imanaysa mushkiladii dabadana waa aniga sanad walba taga saddexdaa meelood baan ka soo ururiyey dhowr iyo 10 arrimood saddexdaa meelood waxaa ka mid ah kasratu ghiyaab wa qillatu sabr maqnaashada dheeraada saarada aynu soo ishaarnay dib maqnaashada dheeraada dee qofka bani aadamka raaxu rabaa wahalbuu rabaa farxad buu rabaa way samraysaa ilaa dumarkeen qaar Allah siiya dadka ugu sabir qaba gabadha ku imaanaysa 5 sanadood buu ninkayga maqan 8 buu iga maqan ma dhacdo dumarka adiga kama dhacdo kaasna wax qoyskii burburin kara weeyaan lagu xisaabtamaa 6 bilood 8 bilood 4 bilood ixtiraam zawaajka waxyaalaha furiinka keeni kara waxaa ka mid ah zawaajul maslaxa guurka banaysiga iyo muraadsiga ninka markuu guursanayo kiishadeedu ku socdaa wuxuu leeyahay wallaahi dee waxa weeyaan waa isku luuqda ama wixeedana cun iyadana cun way macakiishadeedu iska sidataa buu leeyahay iyaduna markay aragto kolka dambe fahamta taa marka hore maharkiiba ka bixinaysaa gabaatiga waa kan ka bixisay yaradkiiba ka bixisay marka dambe way soo taagaysa waxay leedahay intaa wax kaa bixin karaa waa dee u badnaanayso dee wartaadina waxaa jirtaan ala isku dhacaya ama waa isxambaarkeenu garanayna dee isagu wuxuu guursanaya inuu ku dhoofo islaanta wuxuu guursanaya islaamka sida ka weyn inuu ku dhoofo abuu rabaa iyadoo odaygeedu waxay u guursanaysaa inay ku dhooftaaba rabtaa intee uu sii jiri karaa guurkaas xambaarka ku dhoof markuu xaggaa isku ibsado qof ka dhigo ayuu leeyahay warqadaadiha ama warqadaydiisii zawaajii basaxabaale waxa aad u xasaasiya waxa la yiraahdo khuraafaadka iyo sixirka haddii uu dhageeraysaan taa waa arrin jirto xaqiiqo ah oo dowladina aan waxba ka qaban dadkuna aan ku baraarugsanayn bulshadeennina qoysas badan ku burburayaan dadka khuraafaadka iyo sixirlayaashaas qoysas badan bay kala direen oo shuraakay kala direen oo ehel bay kala direen marka arrintaas iskaashiga u baahan iyo weerar iyo difaac xoog leh haddii kale dadku meel daran baa laga doonaya qoysaska markay isfuraan isna xaggan u buyeegaya yana xaggan horta maxaan isku furnay ilaan sidinkaa lagu dalacayo jalfis baa lagu xiray way qarxeen markaasu bay miyirsanayaan iyagii labadiiba way barooranayaan dabeedna way isku soo noqonayaan marka arrintaasina waxay u baahan tahay dadaal aad u badan oo xukuumad iyo shacab iska kaashado tacadudka qudhiisa waa ka mid dumarka qaarkood baa baahinaaso oo safri kari waaya hooyadana ilaata kan haddii aad mid kala guursatay walaalow aniga iska kayfur taasina ma fiicna sabirku waa muhiim qofka dumarka hinaasaa waa la ogol yahay laakiin waa inaan reeraha dooninin ilaa ka darbaa imanaysa waa laga daraya asbaabtaasoo dhowr iyo 10 in laga feejignaado daraasad lagu sameeyo xalkooda la raadiyo sida islaamku ugu dhigaya muhiim